Asalaamu calaykum saaxiibta kusoo dhawaada channelka Beatface AS. Maanta waxaan rabnaa inaan sharaxno qaabkii aad delete garan lahayd Opera computerkaada uga delete garan lahayd. Badanaa waxaynu aragnaa in Opera browserkeena oo computerka uu soo rangareysmayo xitaa anigoo soo staarin oo yani mar walba uu isoo daarayo aan laga delete garan karin xitaa computerka haddii aad isku daydid in aad ka delete garaysid adoo isticmaalaya control panelka uu kaa diidayo inaad delete garaysid macnaha oo aad xadid markaad tagtid uninstall programmeska aadan ka delete karin maxaa la yidhahdaa Opera uu kaa diidayo inaad delete garaysid. Marka ciladan ayaa dhacdo marar badan oo macnaha oo yani browserkan ama computerkeena uu shaqeynayo macnaha Opera uu rangareysan yahay. Haddii mar walba Opera uu yani marka aa install program aad dhigaysid uu yani rangareysan yahay kama ogolaanayo in Opera aad delete diidi doonaa macnaha ma ogola yani ilaana programkii ayaa shaqeynaya oo wuxuu ku leeyahay programkii ayaa back ending shaqeynaya uu diidi doonaa oo wuxuu leeyahay error failed. So qaabka u delete garan kartid wuxuu yahay halka xal wuxuu yahay inaad Opera browserka aad iska soo close garaysid hadduu rangareysan yahay ama uu ka shaqeynayo computerkaada aad ka soo close garaysid computerka then aad isku daydo inaad install garaysid. Markaa install garaysid uu kaa ogolaanaya markaad hadaa yani tagtid appskaada aad dhahdid Opera stable aad search garaysid aad dhahdid uninstall then uu install yani uu ka baxaya computerkaada. So hadda marka uu install garaysmay wuxuuna geeyey browserka oo dib usoo degsano rabnaa haddii aanu ka fiirino taskbarkeena oo meesha applicationskeena try search Opera oo jeedaa sad appkiisa kaliya meesha yaalo haddii aan open dhaho micnaheedu waxa waaye wuu igu shubaya ma rabo inuu igu shubo close garay then iska close garay waxaan fiirinaynaa desktopkeena inuu Opera yaalo uu baxay. So sidaas ayaa ku xalin kartaa marka inaad Opera ka delete computerkaada. Marka I hope inuu videogan ku anfacay haddii aad ka heshay like saar na soo subscribe waan ku mahadsantahay daawashada.